goobtan aan ku sugnahay waa tuulada Soora oo ka tirsan degmada Deekaasuuf ee gobolka Liibaan iyo dusha wabiga Gannaale waa goobaha sida wanaagsan ay uga faa'iideysteen bulshada dib u dejinta loo sameeyay taasoo ay ka helayaan biyahan durduraya beeraha ag yaala waxbarashada iyo caafimaadkii intuba sida wada jirka ay uga faa'iideysanayaan mas'uuliin heer deegaan ah ayaa muddooyinkanba waxa ay ku guda jiraan sidii ay u soo odorsi lahaayeen bulshada dib u dejinta loo sameeyay sida ay uga faa'iideysteen barnaamijkan dib u dejinta kormeerkan isugu jira indhaynta iyo taageerada bulshada dib u dejinta loo sameeyay ayaa waxa laga wadaa gobolada iyo waliba degmooyinka laga hirgeliyay barnaamijkan dib u dejinta wasiir ku-xigeenka xafiiska waraabka iyo horumarinta dowladooyinka ee dowladda deegaanka Soomaalida mudane Ibraahim Maxamuud Mubaarak oo ku guda jira isaga team uu hogaaminayo oo hor deegaana kurgelida iyo waliba taageerada bulshada dib u dejinta loo sameeyay ee ku nool gobolka Liibaan ayaa waxa wasiir ku-xigeenka uu sheegay in gobolka Liibaan qorshihii u ee ahayd in la dejiyo in ka badan 25,000 oo qoys sidii loogu talagalay uu u fulay qorshahaasi iyadoo 25,600 oo qoys ay ka faa'iideysteen barnaamijka dib u dejinta gobolka Liibaan ayaa waxa inta dheer haddana qorshihii sanadkan 2007 oo sidoo ahaa isna u fulay soona gabagaboobay dhammaan markaan kormeeray gobolada degmooyinka iyo qabaliyada ay dejintu ka jirto waxaanu xaqiijinay in sidii loogu talagalay ay u degeen isla markaana sidii loogu talagalay ay u heleen adeegyadii loogu talagalay dhinaca caafimaadka waxbarashada beeraha iyo biyaha bulshadaas oo hadda ka hor ahayd xoolo dhaqato maantana noqotay xoolo dhaqato beeraley gudoomiyaha degmada Deekaasuuf oo ka tirsan gobolka Liibaan mudane Maxamed Maxamuud Xadi ayaa dhankiisa waxa uu tilmaamay in kan degma ahaan qorshihii u yeelay ee ku saabsanaa barnaamijka dib u dejinta sidii loogu talagalay uu u fulay guud ahaan sanadkan iyo sanadka hore markii la isu geeyo waxaan maraynaa meel fiican baa la marayaa kulli waqti dhow waxaan jecelahay sanadka qorshihii noo yeelay inaan soo gabagabin hadduu la yiraahdo si loo ogsoon yahay dawladdu waxay qorshahan u qaadatay in xoolo dhaqatadii loo bedelo xoolo dhaqato beeraley taas anoo ka duulayna degmadeedu waxay ka mid tahay degmooyinka tafaaska laga fulinayo ee dowladda deegaanka Soomaalida Itoobiya kulli qorshahan qaadanay sanadkan waxaan rajeynayaa waqti dhow in lagu soo gabagabeyn doono ugu dambeyntii waxaad arkaysaa qoysaska oo iskooda u degaya goobaha dib u dejinta laga sameeyay kadib markii ay fahmeen isbeddelka nololeed uu leeyahay barnaamijkan xoolo dhaqato beeraleyda Maxamed Xasan Xaashi telefishinka caalamiga ESTV tuulada Soora iyo dusha wabiga Gannaale